wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha ka faracma waxay u dabaaldegayaan guulo waaweyn oo ay ka gaareen labadii sano ee la soo dhaafay hortagnaduna ay u qorshaysnaayeen xukuumadda dan qaran waxqabadka wasaaradda qaabaynta howlaha wasaaradda hoggaanka wasaaradda ee kala dambeeyay waxa ay tayeeyeen haykalka iyo shaqada wasaaradda ayada oo howlaha wasaaraddu ay boqolkiiba boqol ku dhacaan qaab danabaysan taas oo xoojisay hufnaanta shaqo iyo isla xisaabtanka waxaa intaasi dheer tababaro iyo awoodsiin ka dhacay gudaha dalka iyo dibaddiisa dhismaha iyo horumarinta dawladaha hoose wasaaradda oo kaashanaysa dawlad goboleedyada dalka kana duulaysa baahinta iyo daadijinta awoodaha iyo adeegga waxaa la dardargeliyey dhismaha golayaasha deegaanka si dadka loogu dhoweeyo adeegga dawladnimada golayaasha deegaanka ee la dhisay waxaa ka mid ah dhuusamareeb caabudwaaq jowhar balanballe iyo buurhakaba golayaasha deegaanka ee dib loo doortay waxaa dib loo doortay golayaasha deegaanka ee xudur warshiiq iyo cadaado ee koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug waxaa sidoo kale tababaro loo sameeyey golayaasha deegaanada ee horay u jiray dawlad goboleedyada dalka iyada oo kor loo qaaday xirfadooda aqooneed ee ku aadan maamul wanaagga bixinta adeegyada ururinta dakhliga ka qaybgelinta dadweynaha ee dawladda iyo wacyigelinta bulshada sidoo kale wasaaradda ayaa dib u eegis ku samaysay hannaanka qaran ee dawladaha hoose ee wadajir iyada oo wada tashiyo lala sameeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir adkaynta xiriirka wada shaqaynta wasaaradda iyo heerarka dawladda federaalka dawlad goboleed iyo dawladaha hoose si loo adkeeyo xiriirka heerarka kala duwan ee dawladda federaalka ah dawlad goboleedyada iyo dhammaan heerarka kale ee dawladda wasaaradda iyo hoggaankeedu waxa ay qayb weyn ku lahaayeen ajandayaasha shirarka golaha madasha wada tashiga qaran dhanka kale wasaaraddu waxa ay kaalin hoggaamineed iyo mid farsamo ku lahayd howlaha xasilinta dib u heshiisiinta dhismaha dawladaha hoose iyo federaalaynta dalka si loo dardargeliyo loona xoojiyo wada shaqaynta iyo xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda iyo dawlad goboleedyada waxa uu hoggaanka iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda ay safarro shaqo ku tageen dawlad goboleedyada dalka goobaha la booqday waxaa ka mid ah gaalkacyo kismaayo baydhabo jowhar laascaanood dhuusamareeb beledweyn buulo burto maxaas aadan yabaal balcad cadaado baxdo wisil xudur buulo xaaji marko iyo qaar kale xoojinta wada shaqaynta wasaaradda ee hay'adaha caalamiga iyo saaxiibada Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha wasaaraddu waxa ay abuurtay jawi wada shaqayn iyo is-aaminaad oo dhex mara iyada hay'adaha iyo saaxiibada caalamiga ah kulamo kala duwan oo labada dhinac ay yeesheen oo loogu qareemayay in maalgelin iyo dhaqaale loogu helo howlaha baaxadda leh ee wasaaradda ay hoggaanka u tahay waxaa sidoo kale xoogga lagu saaray iskaashiga labada dhinac iyo wada shaqaynta arrimaha federaalaynta doorashooyinka maamul baahinta dhismaha golayaasha deegaanka xasilinta gargaarka bini'aadamnimo barakacayaasha iyo qaxootiga hayaanka u adkaysiga aafooyinka baahinta adeegyada kala duwan ee looga baahan yahay deegaanada khawaarijta laga xoreeyey iyo howlo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta nabadda khilaafaadka badqabka dadka iyo deegaanka nabadgelyada iyo arrimo kale astaynta awoodaha heerarka dawladda waxaa xusid mudan in heshiiskii golaha wada tashiga qaran lagu gaaray go'aanno la xiriira astaynta awoodaha waxaana loogu kala qaybiyey awoodaha saddexda heer oo dawladda ah kuwaasi oo kala ah heerka federaalka waxa uu yeelanayaa 44 awoodood dawlad goboleedyada 29 awoodood dawladaha hoose waxa ay yeelanayaan 31 awoodood halka 19 ay noqonayaan awoodo wadaag ah haddaba si loo taabageliyo heshiiska astaynta awoodaha wasaaradda oo kaashanaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qabatay kulamo farsamo oo qayb ay ka ahaayeen wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda federaalka
si loo furfuro awoodaha iyo mas'uuliyadaha heerarka dawladda, taas oo hadda lagu guulaystay horu socodsiinteeda. Hannaanka doorashooyinka dalka. Si dalka looga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah, wasaaraddu waxa ay diyaarisay xulashooyin ku aadan jihaynta nidaamka doorashooyinka dalka, iyada oo u fududaysay golaha wadatashiga qaran in ay gaaraan heshiis taariikhi ah oo lagu hiigsanayo dhaqangelinta doorasho guud oo ka dhacda dalka oo dhan kadib muddo haatan laga joogo 56 sano. heshiis siyaasadeedkani waxaa ku jira nooca doorasho, matalaadda dheelitiran iyo liiska xiran, nooca deegaan doorasho, nidaamka madaxtinimada dalka, u guuridda nidaamka xisbiyada badan oo ku salaysan xaqiijinta matalaad bulsho, horumarinta wadajirka bulshada iyo ilaalinta midnimada qaranka. waxaa sidoo kale heshiiska lagu qeexay midaynta muddada doorashooyinka dalka iyo guddiga loo igmaday maamulka doorashooyinka dalka. kadib ansixintii labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 4 cutub ee ugu horeysay dastuurka, wasaaraddu waxa ay diyaarisay shuruucdii doorashooyinka sida sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, dib u eegista sharciyada doorashooyinka iyo ururada iyo axsaabta dalka, kuwaasi oo ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyo ururada iyo axsaabta dalka, kuwaasi oo ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. dib u eegista istiraatiijiyadda qaran ee xasilinta iyo dardargelinta dadaalada xasilinta ee deegaanada la xoreeyay. wasaaraddu waxa ay dib u eegis ku samaysay istiraatiijiyadda qaran ee xasilinta iyada oo la tashi la samaysay dhammaan hay'adaha ku shaqada leh arrimaha xasilinta oo ay ugu horeeyaan hay'adaha dawladda federaalka, dawlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir, qaybaha bulshada iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha daneeya hawlaha xasilinta. waxa kale oo ay wasaaraddu dadaal ku bixisay in la sameeyo qorshe iyo haykal loo dhan yahay ee hawlaha xasilinta kala shaqaysay xafiisyada waaweyn ee dawladda, sida xafiisyada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. qorshahan oo la daahfuray bishii Juun 2023 waxaa laga taabageliyay dawlad goboleedyada dalka, iyada oo laga duulayo tiirarka waaweyn ee xukuumadda dan qaran, gaar ahaan tiirka dib u xoreynta iyo amniga iyo isla jaanqaadka dadaalada dib u xoreynta iyo xasilinta. waxaa la gaaray guulo taariikhi ah oo ka dhashay dagaalka ka dhanka ah khawaarijta, kaas oo ay iska kaashadeen dawladda iyo dadka deegaanka, iyada oo lagu xoreeyay degmooyin iyo deegaano in badan ku jiray gacanta khawaarijta. degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyay waxaa ka mid ahaa dhanka dawlad goboleedka Hirshabeelle, aadan yabaal, masjid cali guduud, guulane, alkowthar, nuur dukle, ruunirgood, moqokori, tardo, teedaan, yasooman, aboorey, booco, ceel la helay, caliganey, deegaano ku teedsan degmooyinka Maxaas, Matabaan, Buuloburdo iyo Jalalaqsi. dhanka Galmudug waxaa lagu guulaystay in khawaarijta laga saaro Cado Kibir, Qaayib, Dhuumoodle, Masagawaa, Wisil, Xaradheere, Baxdo, Ceeldheer iyo Galcad. dhanka Jubbaland waxaa laga xoreeyay khawaarijta deegaano ay ka mid yihiin Buulo Xaaji iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. dhammaan deegaanadaasi la soo sheegay waxa ay yeesheen maamullo ku meel gaar ah heer degmo oo wadatashi bulsho ku yimid, kuwaasi oo ka shaqeeya soo celinta adeeg bixinta dawladeed sida sugidda amniga, sarreynta sharciga, helidda adeegyada aasaasiga ah iyo gaarsiinta gargaarka. waxaa deegaanadaasi laga hirgeliyey mashaariic kala gedisan oo kaabaya nolosha dadka oo tiro ahaan gaaraya 300 oo mashruuc oo ay ugu waaweyn yihiin wacyigelinta bulshada, gargaarka, dayactirka xarumaha dawladda, hirgelinta nidaamyada garsoorka, baahinta adeegyada dawladda, gelinta layrarka ilayska cadceedda ku shaqeeya, qodista iyo dayactirka ceelasha biyaha, waxbarashada, caafimaadka iyo gaarsiinta hawlaha gargaarka. diyaarinta sharciyo siyaasado iyo istiraatiijiyo muhiim ah. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay ku guulaysatay in ay dib u eegis ku samayso siyaasadaha iyo istiraatiijiyadaha kala ah: istiraatiijiyadda qaran ee xasilinta, hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta, istiraatiijiyadda qaran ee ka qaybgalka haweenka ee dawladaha hoose. xogta hoose ayaa soo koobaysa sharciyada kala duwan oo ay ka shaqaysay wasaaradda arrimaha gudaha
2022 ilaa 2024. hindisa sharciyeedyada wasaaradda ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen: hindisa sharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, hindisa sharciyeedka ilaalinta taakulaynta barakacayaasha, hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyadoonka, hindisa sharciyeedka daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah, hindisa sharciyeedka guddiga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, hindisa sharciyeedka doorashooyinka dalka, hindisa sharciyeedka ururada iyo axsaabta siyaasadda dalka. soo noolaynta howlaha daddhigista iyo casriyeyntooda. waxa ay wasaaraddu ku guulaysatay adkaynta xiriirka daneeyayaasha daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah iyada oo la raacayo sida ku cad siyaasadda qaran ee daddhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah. sidoo kale waxaa markii ugu horreysay ay wasaaraddu qabatay kulanka guddiga heer wasiir ee hagidda daddhigista. dhanka kale wasaaraddu waxa ay horumar ku samaysay dhammaystirka shuruucda daddhigista si guud iyada oo wada tashiyo la xiriira qabyo-qoraalka sharciga iyo habraacyadiisa lala yeeshay saamileyda horumarinta nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistikiska muhiimka ah. waxaa sidoo kale wasaaradda u suurtagalay diyaarinta foomam iyo shahaadooyin midaysan oo khuseeya dhacdooyinka daddhigista, kuwaasi oo asaas u noqon doona habdhismeedka shaqo ee barnaamijka elektarooniga ee daddhigista qaranka. wasaaraddu waxa ay dhaqangelisay nidaamka diiwaangelinta xafiisyada daddhigista iyo saxiixayaasha caddaymaha daddhigista ee dowladaha hoose ee dalka iyo xaqiijinta sax ahaanshaha caddaymaha marka loo baahdo. sidoo kale waxaa guulo laga gaaray naqshadaynta barnaamijka danabaysan ee daddhigista dalka hay-adda nadra bakistan ay ka caawinayso wasaaradda diyaarintiisa. wasaaraddu waxa ay samaysay daraasad ballaaran lagu sahminayo nidaamka daddhigista dalka sida uu hadda u shaqeeyo comprehensive assessment, taas oo asaas u noqon doonta qorshaha istiraatiijiyadda qaran ee daddhigista dalka 5 sano ee soo socota. dib u eegista hannaanka dhab u heshiisiinta qaran. hannaanka dhab u heshiisiinta qaran waa siyaasad istiraatiijiyad iyo habraac la isku raacsan yahay oo ay wasaaraddu ku shaqaynaysay 5tii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna gundhig iyo hage u ahaa dadaallada dhab u heshiisiin qaran. waxaa la soo gebagabeeyey wejigii hore ee hirgelinta qorshaha hannaanka dhab u heshiisiinta qaran oo ay wasaaraddu ku shaqaynaysay sannadihii la soo dhaafay ee 2029 ilaa 2022. haddaba si laysku waafajiyo hannaankan iyo halkudhigga xukuumadda dan qaran ee Soomaaliya heshiis ah, waxa ay wasaaraddu dib u eegis ku samaysay hannaanka dhab u heshiisiinta qaran iyo qorshihiisa fulineed. waxaa wada tashiyo baahsan lala yeeshay dhammaan daneeyayaasha oo ay ugu horreeyaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. sidoo kale wasaaradda ayaa diyaarisay qorshe istiraatiijiyadeed ee 5 sano ee soo socota ee hannaanka dhab u heshiisiinta qaran 2025 ilaa 2029 oo ay qayb ka yihiin dhammaan saamileyda howlaha nabaddhiska iyo dib u heshiisiinta dalka. bannaynta xarunta wasaaradda. waxaa dadaal badan lagu bixiyey sidii loo bannayn lahaa xarunta wasaaradda arrimaha gudaha, taas oo ku soo dhammaatay guul. sidoo kale waxaa loo diyaargaroobay dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda, kaas oo ku soo dhammaan doona muddo kooban. aasaaska iyo howlgelinta hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga NIRA. waxqabadka hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga NIRA. wasaaradda waxa ay ku guulaysatay islamarkaana ay howlgelisay hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga ee NIRA. hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka waxaa lagu dhisay sharci lambar 3 kaas oo soo baxay 2023, waxayna u xil saaran tahay bixinta aqoonsiga qaranka oo muhiim u ah ilaalinta amniga, la dagaalanka garanwaaga, fududaynta helidda adeegyada dawladeed iyo kuwa gaarka ahba. si loo dardargeliyo howlahaasi, hay-adda waxaa loo sameeyey maamul cusub, halka ay qoratay shaqaalo tayo leh, la tababaray, lana diyaariyey nidaamka maaraynta aqoonsiga qaranka Somalia National ID System, iyada oo ay hadda si habsami leh caasimadda Muqdisho iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka uga socdaan diiwaangelinta dadweynaha. dib u howlgelinta hay-adda maaraynta masiibooyinka Sodma iyo ka jawaabidda baahiyaha gargaarka. si looga jawaabo abaarta iyo masiibooyinka kale, wasaaradda waxa ay ku guulaysatay dib u howlgelinta hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed Sodma iyo la wadaagidda dhammaan shaqaalaha iyo xarumaha wasaaraddii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka
si arrimahaasi loo sii dardargeliyo waxaa sidoo kale la howlgeliyey xarunta qaran ee howlgallada gurmadka degdega ah ayada oo la hoosgeeyey hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed Sodma. hay-adda waxa ay ku guulaysatay in ay dhisto xarunta dhexe ee hay-adda ay ku shaqayn lahayd ayada oo markii dib loo yagleelay la wareegtay xarun kira ah oo lacagta kirada ay bixiso hay-adda UNDP. nasiib wanaag dadaal dheeri ah iyo juhdi badan oo ay bixiyeen hoggaanka sare ee wasaaradda, hay-adda waxa ay yeelatay xarun dhexe oo loo dhisay si heer sare ah loona qalabeeyey ayada oo ay ku howlgalaan guddoonka hay-adda, qaar ka mid ah agaasimayaasha hay-adda, la taliyayaasha iyo khubarada lafdhabarka u ah hay-adda. Sodma waxa ay ku guulaysatay abaaro iyo masiibooyinka dabiiciga ah iyo qaar kale oo badan wixii ka dambeeyey 2021 ayada oo badbaadisay malaayiin u baahnaa gargaar degdeg ah kuwaasi oo ku nool goobaha abaaraha iyo masiibooyinka ay ka dhaceen iyo deegaanada laga xoreeyey khawaarijta. dardargelinta howlaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka. hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxaa lagu sameeyey dib u habayn maamul iyo shaqo, waxaana lagu guulaystay meelmarinta shuruuc muhiim ah oo ay ka mid yihiin qaxootiga iyo magangelyadoonka iyo midka barakacayaasha. waxa kale oo lagu guulaystay samaynta siyaasadda qaran ee qaxootiga soo guryo noqonaya iyo barakacayaasha gudaha, samaynta xeer nidaamyaha qaran ee ka saaridda dadka hooy ama guri ay degan yihiin, samaynta brotokoolka kumeel gaarka ah ee qaybinta dhul dadka ku mutaysta ee qaxootiga soo guryo noqonaya iyo barakacayaasha gudaha, tababaridda macallimiinta xalka waara heer federaal iyo mid dowlad goboleed intaba.